barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u dayman la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad Coach Maxamed Ibn Umar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada barnaamijkeeni kobciye iyo 10 cinwaankiisu yahay farxadda bixintu leedahay. Bixinta isismaduba waa erayo inta badan aan hadal hayno kuna soo noqnoqdo afkeena iyo tacaamulka ina dhaxmara intaba. Waayahan dambe dadkii waxay u bateen dad naftooda kaliya uun ka fakara oo aanay dambe ka lahayn inta ayaga ka soo hartay. Mar hadday ayagu wax helayaan waxaa badatay in laga fakaro uun sidee shilin igu soo galaa lama badanayo bixintiisa. waxaad leedahay qof waxa ii soo qabo ama sidaa ii yeel markaasuu ku leeyahay maxaa iigu jira aniga. weligaa ma dhadhamisay macaanka iyo farxaddu leedahay bixinta. weligaa ma farax gelisay ruux kale oo ma ka heshay dareen liibaaneed iyo farxad aad u ballaaran kana guda weyn midii aad siisay qofka kale. bixintu waa arrin diinkeenu nagu booriyey, waana midda dhista ilbaxnimada ummaduhu ku tallaabsadaan, waana tan lagu kala garto dadka horumaray iyo kuwa dib u dhacay. dadka saa'idka ah jirkooda u soo daayo maadada loo yaqaano dopamine ee mas-uulka ka ah sare u qaadka dareenka farxadda iyo liibaanta ayaa lagu sheegaa inay yihiin kuwa aadka wax u bixiya, noloshooduna ku dhisan tahay bixinta iyo waxtarka dadka kale. bixin iyo deeq markii la maqlo ayaa waxaa si dhaqsi ah noogu soo dhacaya bixinta lacagta iyo waxyaabaha maadiga ah ee la taaban karo oo qura. hase ahaatee bixintu intaa way ka guda ballaaran tahay kana macno weyn tahay. dhagaysto waa dhab in bixintu nooca gacanta wax laga bixiyaa uu yahay muhiim, diintuna aad uga hadashay. allah ayaa yidhi wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wahuwa khayru raasiqiin. oo laga wado wax kastood bixisaan allah ayaa idin siinaya beddelkooda. inta wax bixisaana alle ayaa u wanaagsan. wax bixi adiguna aad heshid beddel wanaagsane. mana ahan qasab inaad ahaato ruux laban ama hodan ah oo xoolo badan si aad wax u bixiso. ogow dhagaystow in bixintu tahay waddada ugu sahlan ee lagu helo farxad iyo liibaan. sidaa darteed ayaa maalqabeenno badan oo adduunka dadka ugu xoolaha badan lagu tiriyo u soo jeesteen bixinta xoolahooda si dadka wax loogu qabto, ayagoo samaystay ururo dadka caawiya sida ninka loo yaqaano Bill Gates ee ah aasaasaha shirkadda Microsoft loo yaqaano, iyo ninka lagu magacaabo Mark Zuckerberg oo ah ninka aasaasay shirkadda Facebook. waxay wax u bixinayaan wax kale ma ahan waa farxad ay ku ogyihiin bixintu inay leedahay. qaababka ugu muhiimsan uguna wanaagsan ee gacanta wax looga baxshaa waxaa ka mid ah inaad tagto dukaan oo aad isleedahay waxaa ka adeegta reero kala duwan, kuna tuhumaysa inay ka mid yihiin reero tabaaleysan ama sabool dhowrsoon ah. waxaa dhacda in inta badan buug uga furan yahay halkaas oo lagu qoro deynta waxyaabaha reerkaasi u baahdo oo uu qaato bishii, markay dhammaatana iska bixiyaan wixii lagu yeeshay oo xisaabtu noqoto. u tag dukaanlaha oo weydii reer sabool ah oo si dhib ah ku bixiya deynta amaba aan iska bixin karin, kuna dheh ii soo saar bogga uu ku qoran yahay deymaha lagu leeyahay. ka bixi deymaha lagu leeyahay oo kadibna wac ayaga intaad dukaanlaha ka qaadato nambarkooda, una sheeg in ruux khayr wada ah ama wanaag doona ah uu ka bixiyey wixii bishaa lagu lahaa. dhagaystow haddaad sidaas samayso farxad intee la eg ayaad ku beeraysaa reerkaas qalbigooda. muxuuse noqonayaa dareenkooda markay ogaadaan in bishaan wixii raashin ahaa ee dayn loogu lahaa oo dhan nin wanaag fale ah uu ka baxshay. mase qiyaasi kartaa adigu ruuxaaga liibaanta iyo dareenka farxadeed ee aad dareemayso marka dhagahaaga maqlayaan ruux aanad aqoon oo kuu soo ducaynaya, kuuna mahadnaqaya, ilaahna kuu weydiinaya wanaag oo dhan. bixintu ma lahan yaraan iyo badnaan. bixi wixii aad heli karto, hana quursan adoo dhahaya waxani waa yar yihiin, maxaa yeelay ma ogid intaas yar inay noqon doonto berri midii aad u baxsan lahayd oo wax ku tari lahayd ama tii kaa badbaadin lahayd dhibaato kugu soo wajahan.
nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa yiri naarta kaga dhowrsada oo iskaga xijiyo iskaga ilaaliya jeex timiraba Allah ka dhigay bixi walaal hadaad heli karto hal shilin xataa bal ka waran ummad dhammaan xubnaheedu ku dadaalayaan bixinta oo ku wada tartamayaan dhammaantood inay noqdaan gacanta sareysa ee wax bixisa ogow adiga qaadanaya xataa in mid ka daran uu jiro oo kaasi hooseeya ee adiguna fadlan si ka liita hadaan kulligeen wax bixino oo aan wax isa siino ruux walbaana uu ugu deeqo waxa uu Allah ku galadeystay ruuxa kale ee u baahan waxaan u hodmaynaa si degdeg ah mana la arkayo sabool iyo ruux aan waxba haysan wadanka Suudaan ayaa waxaa ka jirta caado wanaagsan oo bisha Ramadaan ay sameeyaan taasoo ah afurinta soomanaha si gaar ah socotada oo waxay sameeyaan caado wanaagsan oo aan aad uga helay taasoo ah in qoys waliba uu la soo baxayo ama banaanka keenayo wixii uu kariyay ee raashin ahaa oo ugu talagalay afurka kadib ayay waxay sameeyaan jidgooyo ayaga oo hakinaya dhammaan gawaarida socota markii la gaaro xilliga maqribka halkaas ayaa si wada jir ah loogu afurayaa qoysaskii afurka sameeyay ee soorayay dadka sooman iyo dadkii socotada ahaa intaba bixintu kuma koobna in gacanta wax laga bixiyo qof inaad murugo ka faydo oo aad laabta u dejisaa waa bixin dhoolla cadeynta iyo waji furnaantu waa bixin waanada iyo hadalka wanaagsani waa bixin oraahda dhiirigelinta leh ee wanaagsan waa bixin jidka oo aad dhibaato ka qaadaa waa bixin oday waayeel ah oo aad gacanta qabataa waa bixin xumaha oo si wanaagsan aad u reebtaa waa bixin aqoon kordhintu waa bixin wacyigelintu waa bixin hadalkan hadda idiin sheegaya laftiisu waa bixin waana ku faraxsanahay bixintaas nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri tabassumuka fi wajhi akhiika laka sadaqa وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وإمادتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة بحنتو وحي قاريسا ونالفري إنان وحكب بحنا النولها أو حتى كان آن آذنها أهين أو قودنت يوحترك حيوانك حتى وابحن laga helayo liibaani farxad si nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam sagoo tilmaamay in beer kasta oo qayan ay wax ku baxaan si diinteenu ay macnaha bixinta u balaarisay ugana hadashay maana arag cid uga hadashay una balaarisay ilaa bixintii la gaarsiiyay isu taga labada isqaba iyo hawsha gogashooda ka dhacda lana sheegay inay tahay bixin ajar laga helayo waxaad isweydiisaa labada su'aal oo kala ah ma heshay farxad iyo liibaan mase siisay oo ma ku beertay ruux kale farxad iyo liibaan nabigeena ayaa xadiis ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam in waxyaabaha sameeyntooda alla agtiisa loogu jecel yahay oo ka mid yahay farxad la galiyo ruux muslim ah qalbigiis Dr. Cabdiraxmaan Al-Sumayd Allah u naxariiste waxa uu ahaa dhakhtar Kuweytiyaan ah waana tusaalaha ugu weyn casriga aan joogno ee xagga bixinta iyo siismada noocyadeeda kala duwan wuxuuna mudan yahay ku dayasho Dr. Cabdiraxmaan Al-Sumayd waxa gacantiisa ku soo islaamay 12 milyan oo qof wuxuu kafaalo qaaday 15 kun oo agoon ah wuxuu dhisay 850 dugsi waxa lagu barto quraanka oo wax lagu barto culumta kala duwan wuxuu sameeyay 204 xarun diinta islaamka lagu barto wuxuu dhisay 5700 masjid wuxuu qoday 9500 ceel wuxuu furay 4 jaamacadood ma sha Allah intaas oo bixin ah wuxuu siiyay una qabtay uu ka hirgeliyay qaaradda Afrika maalmaha kamida ayaa asaga iyo xaaskiisa oo reexanay gaarigoodii oo dhiiqo uga galay meel cidla ah oo ku taala mid kamida wadamada Afrika ee uu ka shaqeeyay Dr. Cabdiraxmaan ay xaaskiisa ku tiri Dr. Cabdiraxmaan oo hadii aan adduunyada sidan ugu faraxsanahay aakhira maxaad moodaa iyo waxa Alle inoogu diyaariyay dabcan wax aad iyo aad u weyn waaye waa dareen farxadeedka dhabta ah ee bixintu leedahay waxa ay dareentay xaaskii Dr. Cabdiraxmaan waa farxadda meel dheer aan loo doonaynin ee bixintu leedahay waa farxadda iyo liibaanta aad ka helayso kaliya inaad ku deeqdo wax aad dadka dheer tahay
haddaad aqoon-yahan tahay bixi aqoontaada, haddaad sheekh tahay bar dadka diinta, haddaad maalqabeen tahay bixi xoolahaaga, haddaad dhakhtar tahay bixi waqtigaaga oo samee maalmo bilaash ah oo ay ku yimaadaan dadka aan goosan karin boonadaada. bixi waxa aad dadka dheer tahay, takhasus kasta oo uu yahay waxa aad baratay iyo dhan walba oo uu nolosha kaga jiro. alle wuxuu qur-aankiisa ku yidhi, haddii aad iiga shukrisaan nicmada aan idin siiyey waan idin kordhinayaa. shukrinta ma ahan inaad afka ka tidhaahdo alxamdulilaah oo keliya, waxay rabtaa in fal aad la timaado. sidaa daraaddeed bixi si aad alle ugu shukriso. mahadsanid. diiwaangeli wixii aad faa'iiday, isku day inaad dhaqan geliso, siina faafi.